السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta wuxuu barnaamijkeena ku saabsan xikmado ku saabsan nolosha gaar ahaan kuwa waaniyo ku tusaaleynaya tilmaamo leh. waxaan badanaa xikmadahan ka soo qaadanaa dad aqoon-yahana, hogaamiyayaal, saynisyahaniin iyo dad falsafiin ahba. waxaan xikmada koobaad oranaysaa qofna ma awoodo inuu koro dhabarkaaga haddaanad adigu u janjeerin. dagaalku mar walba ciwaaru ma aha qulubta qalafsan. qaar ka mid ah qulubta fiican way dagaalamaan maxaa yeelay way dhaawacan yihiin. hore uma arag dameer u hadlayo sida dadka, balse waan la kulmay dad badan oo u hadlayo sida dameerka. haddaad cunto xun jirkaagu wuxuu noqonayaa mid xun. haddaad akhrido buug xun caqligaagu wuxuu noqonayaa mid xun. haddaba ka digtoonaada wuxuu caalamku ku samaynayo caqliyadiina. ha ku ciyaarin dareenka dadka kale maxaa yeelay waad ku guulaysan doontaa ciyaarta, balse khatartu waxay hoojinaysaa qofkaas noloshiisa oo dhan. aamini qofka kaaga sheekeeyo sirooyinka dadka kale maxaa yeelay ma garanaysa goorta imanaysa xilligaagu ugana sheekayn lahaa sirahaaga. dadku waxay jaahil ka yihiin in buug keliya ay suurtagal tahay inuu bedelo nolosha qof. jeclow ama necmow dhammaantood waa midaan doonayo. haddaad jeceshay mar walba waxaan ahaanayaa qalbigaaga, haddaad necabtana waxaan mar walba ahaanayaa caqligaaga. macquul ayay ii yahayd inaan laayo yuhuudda oo dhan, balse qaar ka mid ah ayaan ka tegey si uu caalamku u garto sababtaan u leynayay. maaha ceeb in ninka raggi wax ka barto qalbiga dumarka maxaa yeelay waxay kaa dhigaysaa mid bini'aadantinimo badan oo leh naxariis. ka dhig xidhiidhka dadka iyo idinka idiin dhexeeya sida caleemaha geed ku yaalla, mid hadhaya oo beeranaya iyo mid goobsanaya oon soo noqonayn. habkan ku cabiray inaan keliyahay waxaan leeyahay laba dhagood, midkoodba waxba kuma jiraan. inaad xaqiiqda sheegto oo aad dadka ku xanuujisaa ayaa waxay ka fiican tahay inaad been sheegto si aad dadka u raali geliso. igu dil runtaada hayguna farxo gelin beentaada. jacaylku macsiyo ma aha, balse macsiyadu waa inaad ku ciyaarto dareenka dadka kale adoo ku magacaabaya jacayl. haddii aad qof dhigtaalka qiimaha ugu saraysaa waxa uu ku dhacayaa inuu ku dhigo bilaa qiimo. baqashadu kuma diidayso dhimashada, balse waxay kuu diidaysaa nolosha. inay dadku igu nacaan waxaan ahay ayaa waxay ka fiicantahay inay dadku igu jeclaadaan waxaanan ahayn. ma jiro qof ka xun qof u cadhooday qof kale kadibna ay ka soo baxeen sirihii oo dhan carabkiisa.